السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أصحابتي كنت جروبك إيه دمان أصحابته نوحيدكم سلام سلام كدب waxaan maanta door biday inaan idin la wadaago free scholarship kan runtii waan hirgabsanahay laakiin waxaan rabaa inaan bulshada la wadaago programkan iyo ahmiyadda uu leeyahay ayuu nasra arki doonaa insha Allah taala. Hadaba scholarship waxaa bixin doona wadanka Ruushka ama Russia ayaa bixin doonta wana full scholarship full ah weey. Waxaan nasra arki doonaa insha Allah taala qodobo yar oo ku saabsan scholarship kan. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed ee doonaysa helaan fursada waxbarasho bilaasha hadda waxay u haysan chance wanaagsan ay ku xaqiijin karaan riyadaas ay lahaayeen. Hadaba deeqda waxbarasho ee dalka Ruushka uu bixinayo, Ruushka waa mid kamid ah dawladaha ugu awoodda weyn caalamka dhanka waxbarashada ugu wanaagsan ayuu kamid yahay. Hadaba codsiyada deeqda waxbarasho ee dawladda Ruushka ee bilaashka ah wuxuu u furan yahay dhammaan ardayda dunida oo idil sidaan u sheegnay. waxaana abla garan kartaa marxaladaha kala duwan ee Harley Patch iyo Master iyo Doctorate intaba waa abla garan kartaa. Hadaba hadii aad doonayso deeqda waxbarasho bilaasha ama full scholarship inaad hesho ee dadka dunida oo idil dhamaantood wada heli karaan, waxa danaynaya inay wax bartaan dhamaantood heli karaan inay deeq waxbarasho dalka dibadiisa helaan. waxa kala socon kartaa Shaciya Academy in mar walba insha Allah taala scholarship badan oo soo dhigi doonaa haddii aan leedmay ku aada arrimaha kale. Hadaba deeqdan arrimo ku saabsan ayaynu ka hadli doonaa insha Allah taala qof si gudbo aqrisan doona deeq mar walba dalka maxaa yiraahdaa Ruushka sanadla ayuu u bixiyaa. wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyagu iskaashanaya ee deeqda tan bixiyaan. waxayna kamid tahay dalka Ruushka wuxuu kamid yahay jaamacadaha ugu wanaagsan dunida dadka kale ama ku jira kaalmaha ugu wanaagsan ayuu ku jira. waxay ku jirtaa kaalinta 15aad jaamacadooda ama dalka Ruushka. waxbarashada Ruushka wuxuu ku jirtaa kaalinta 15aad ee ku aada dhanka tayada waxbarashada jaamacadaha sida sheegtay QS World Indicator way oo cabira ama astaamaya ama calaamadeeya heerarka waxbarasho ee jaamacadaha ugu waaweyn kamid ah oo Moscow sidaan u jeednay jaamacadaha idilka St. Petersburg baa kamid ah. Hadaba deeqda waxbarasho ee dalka Ruushka uu bixinayo waa haysiin doontaa waxyaabo wanaagsan bay leedahay. ugu horeen faa'iidooyin badan ayay qofku ugu jira faa'iidooyinka dabolis waxa kamid ah qarashkii ardayga waxaa la siinaya sidoo kale guri bilaasha ardayga sidoo kale wuxuu heli doonaa lacago bilaa uu qaadan doona ayuu heli doonaa. sidoo kale waxaynu u ogolaataa ardayda inay bartaan sanad diyaar luqadda Ruushka. qofka haduusan aqoon waxaa la siin doonaa chance luqadda Ruushka ku barto muddo sanad. sidoo kale shardi maaha qofka inuu yaqaano English macnaha shahaado inuu ka English ma yaqaan muhiim laakiin inuu shahaado ka sida TOEFL IELTS inuu ka haysto laguma shardiyo ardayga raba inuu doonayo inuu wax barto. Hadaba 15 kun qof ay qaadanaysaa insha Allah taala waxaa noqon doonta mid kamid ah 15 kun qof haduu alla idmo. waxaanu soo arki doonaa insha Allah taala faahfaahin ku aadan deeqda waxbarasho dalka bixinaya waa Ruushka. deeq bixiyaha waxaa wasaaradda waxbarashada ee dawladda Ruushka ay bixin doonta. jaamacadaha lagu baranayo waxaa dhammaan jaamacadaha xukuumiga ee dalka Ruushka iska leeyihiin ayaa lagu baran doonaa. sidoo kale heerarka waxbarasho waa Patch, Master iyo Doctorate intaba fiiro gaara deeqda waxbarasho laguma shardinaa wadar gaara inaad leedahay. oo micnaheedu maxay tahay qasab maaha in aad 90% ama 90% inaa 80% kor u dhaaftay. jaamacada noocaas ku shardiya baa jira, tan shardiga nooca ma jirto. sidoo kale da'da ma jirto, shardi ayadana ma jirto. luqadda Englishka iyadana kaagama baahna shahaado cadaynaysa inaad haysato. xilliga kama dambayska waa 1 November iyadana waqti yar baa nooga haray. hadda caawo video duubay waxaa 27 October waxay noogaan muddo 4 maalmood 5 maalmood way. hadaba qoraalkan ku xiisa gelinaya insha Allah insha Allah taala waxaad codsan kartaa naftaada adigoo raacaya tilaabooyinka sharaxaada faahfaahsan ee video step by step kugu sharaxno kugu soo diri doona. haddii aad rabto qofki doonaya inay video step by step ugu sharaxno u soo dirno then isaga ayaa xareysan kara. sidoo kale haddii aad rabto channelkaaga inay sii kordhiso oo ay deeqdan waxbarasho adigoo ka dalbanaya Shaciya Academy inuu ku xareeyo maadaama hab tacliin ama hab xirfad sare kugu xareeyo doono programkan halkan ayaa ka codsanaysaa hadduu alidmo. qiimaha waa qiimo aad u jaban. qiimaha qofki doonaya
in maxaa yidhahdaa anuu xarana waa $25 $25 keliya ayuu bixinayaa plus free course waan siin doonaa free training ayuu siin doonaa qofka doonaya isaga inuu xarayso videogan u diranaya qiimo dhimis baan ku sameyn muddo kooban ayaa ka dhiman only $6 ayuu bixin doonaa $6 uu bixiyo wuxuu ku heli doonaa trainingkii $6 ayuu bixin doonaa keliya then si free ayuu ku siin doonaa programka videoga ku shaqay si free ayuu ku siin doonaa mar kale haddaan ku celiyo trainingka iibso oo hel $6 ku iibso trainingka oo hel maxaa la yidhaahdaa scholarshipka kala hel ama anaga haddaynu ku xariirno waa $20 sidoo kale waxaa kusoo biiri kartaa gurubyadana haddaad doonaysa inaad iska diiwaangeliso waxaad ku dhufan doontaa adiga haddii aad doonaysa inaad iska diiwaangeliso si kaga tijaabiso dan halkan aad ku dhufan kartaa si aad iskaga diiwaangeliso si toos ayuu ku geenaya linkiga si toos ayuu ku geenaya waayaa adeegyada uu bixiyo shaaciga academy waxaa kamid ah dalbashada deeqaha waxbarasho habda casri inuu kugu diyaariyo codsiyada tababar haddii tababar dunida ka doonaysa habka codsiga loo sameeyo ama training hadduu yahay ama hadduu yahay scholarship haddii uu yahay fursad shirar meeting qofka qaybgalayo oo codsiyo documentyo loo soo diray diyaarinteeda waynu ka caawin doonaa hadduu alidno sidoo kale waxaan ka caawin doonaa diyaarinta documentiyada laga marmaanka sida cv-yada warqada dhiirigelinta ama motivation letter wax loo yaqaano warqad shakhsiyadeed ama personal statement haddii lagu diro kale waa kuu diyaarin doonaa hadduu alidmo warqad talo bixin ama recommendation letter ee jaamacada qaarkood ee dadka ku xira iyadana waan ku diyaarin doonaa sidoo kale qorshe cilmi baaris oo research iyadana waan ku diyaarin doonaa haddii aanu danaynayso ama arday jaamacadeedu tahay sidoo kale qoraalada shuruudaha kale ee deeqda waxbarasho iyadana waan ku diyaarin doonaa hadduu alidmo haddaba training scholarshipkan ayaa codsan kara dowlad waxaa codsan kara ardayda maraysa fasalka form 4ka ee aan dhammaynin way codsan karaan waxay codsanayaan undergraduate bay codsanayaan waxay caddaynayaan laakiin waxaa laga doonaya inay caddeeyaan marxaladda ay marayaan inay caddeeyaan laga doonaya waxaa laga doonaya maxay inay caddeeyaan haddeertaan form 4 inay dhigtaan sidoo kale waxaa laga doonaya form 3gii intii ay ka keeneen natiijadiisana waa laga doonaya sidoo kale ardayda hore u dhamaysata dugsiyada sare iyo si toos ayay u xareysan karaan oo baaj ay si toos u dalban karaan ka waran arday heerka jaamacadda koowaad buu dhigtaa tusaale ahaan oo kale semestrada ugu horeeya ayuu maraya isagana wuu codsan karaa laakiin isaga waxaa la dhahayaa waa inaad daraasada dib ugu soo celisaa oo maadaama semestrada ugu horeeya semestrada ugu dambeeya aadan marin waa inaad jaamacadda bilowdo dib waa inaad haddana koorso kale aad u bilowdaa ama isla iyada waa inaad dib ugu soo celisaa haddii aad rabto inaad isla koorsadaas aad dareynayso inaad dib u dhigato waayay sidoo kale ardayda hore u dhamaysatay shahaadada koowaad ee heerka jaamacadda undergraduate dhamaysatay iyaga si toos bay masterka u codsan karaan sidoo kale ardayga undergraduate buu dhigtaa laakiin sanadka ugu dambeeya maraya semester 7 ayuu oo kale maraya semester 7 hadaa marayso waa codsan kartaa master degree adigu caddaynaya 6 semester soo dhaaftay natiijadooda adigu caddaynaya semester 7 inaa maraysanaya caddaha haddaba ardayga hore u dhamaystay jaamacadda heerka jaamacadeed dhamaystay isaga doctora ama PhD si toos buu codsan karaa kii doonaya master degree-gana waa lamid oo sanadka ugu dambeeya master hadaa maraysa iyadana waa codsan kartaa way kuliyada aad u waaweyn ayaynu jaaniska kan inoo saamaxay kuliyadaha kalena maxaa kamid ah kuliyada aad u waaweyn si faahfaahsan oo akhrisaa medicine dentist pharmacy veterinary nursing a lot of programmyo ayaa maxaa la yidhahdaa ku jira oo aad awood u leedahay in maxaa la yidhahdaa aad ka codsato haddaad doonaysa inaad wax kasii ogaato takhasusyada kale ee ka banaan halkan aad ku dhufan doontaa programs badan baa halka ka heli doontaa haddaba tilmaamaha deeqda waxbarasho aynu isla aragno iyo maalgelinteeda deeqda waxbarasho waxay dabooli doontaa dhammaan kharashaadka waxbarashada sidoo kale waxaad heli doontaa lacag bilaa sidoo kale waxay bixin doontaa hoy bilaasha ay ardayga sii doontaa ardaygan waxaa loo ogolaanaya inuu barto luqadda ruushka muddo sanada oo diyaarinaya inuu ardaygu barto haddaba dokumentiyada looga baahan yahay si aad u codsato deeqdatan waxbarasho waxaa buuxinta foomka codsiga inaad buuxiso application formka inaad buuxiso kawa number 1 sidoo kale sawir teesaro ama sawir shakhsiyadeed backgroundgiisu waa caadiya inaad keento sidoo kale waxaa lagaa doonayaa copy passport inaad maxaa la yidhahdaa copya inaad leedahay oo maxaa copyga passportka oo datekiisu uusan dhicin passportkaagana waa inaad copygiisa dirtaa oo datekiisu aan dhicin sidoo kale waxaa lagaa doonaa nuqul kamid ah shahaadada qalinjibintii ama iyo transcriptigii ugu dambeeyay ee aad qaadatay iyadana waa lagaa doonayaa sidoo kale waxaa lagaa doonaa nuqul kamid ah shahaadada qalinjibintii iyo transcripti ugu dambeeyay ee ku saabsan buddooyinka ama haddii macnaha waxa qaybta kood waxaa weeye waa shahaadadii caadiga ahayd shahaadada ugu dambeysa waxaa lagala jeedaa dib transcriptiga iyo shahaadadii caadiga iyada labadaba inaad keento sidoo kale waxaa lagaa doonayaa haddii aad doonayso
kan waxaa weye haddii aad doonayso batch haddii aad doonayso tii secondarygii iyo laga doonaya transcriptigii haddaad doonayso masalan waxaa laga doonaya transcriptigii batchkii iyo maxaa la yidhahdaa shahaadadii caadiga ahayd sidoo kale haddaad doonayso dictora ama dhakhtar barnaamijka loo yaqaan PhD haddii aad doonayso iyadana waxaa weye masterkii degreega iyo transcriptiga laga doonaya sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay nuqul caafimaad inaad caafimaad qabto inaad cadeyso allahuma mustacaan inaad caafimaad qabto cadeyna sidoo kale waxaa lagaaga baahan yahay allahuma mustacaan waayahay sidoo kale inaysan jirin qofka kan xanuun gaara inuu qabo maxaa layidhahdaa cadeyna inuusan cuduro liisqaasi uusan qabin oo soo saara isbitaalkii ku yaala dalkiisa sidoo kale inuusan qabin HIV inuusan qabin cadeyna isagana isbitaalkan uu kasoo qaato waayahay qoraalo muhiim ah haddii aad iska diiwaangeliso haddii aad ka diiwaangashantaa ama aad dhigato fasalka ugu dambeeya dugsiga sare oo aad rabto inaad codsigan gudbiso sida aad horuu sheegnay waad awoodaa inaad gudbisato adigoo keenaya form 3gii cadeyntiisii adigoo form 3gii cadeyntiisii adigoo keenaya iyo inaad form 4 dhigato labada cadeyn form 3gii wixii aad keentay inaad form 4 dhigato haddii aad ku jirto fasalka ugu dambeeya maxaa la yidhahdaa ama sanadka ugu dambeeya batchka haddii aad ku jirtana iyadana waad awoodaan ama digri gudbista adigoo keenaya samsadada soo dhaafo wixii aad gudbisatay doctoraa ama PhD waa lamid halkan ku dhufa haddii aad doonayso takhasusda si aad u aragto halkan ku dhufa haddii aad doonayso inaad iska diiwaangeliso waxaan rajeynayaa insha allahu tacaala dad badan inay soo bixi doonaan oo fursadan ka faa'iidaysto chance ku yarahay muddo kooban inoo dhiman let us do our work aynu shaqaysano kana faa'iidno programka kan haddii aad doonayso inaan kaa caawino $25 kaliya aad bixin doontaa waxaynu kuu samayn doonaa dhammaan committeeda iyo xareynta aad u baahantay inuu kuu samayn doonaa sidoo kale haddii aad doonayso inaan kuu soo dirno video step by step kugu sharaxayo keliya waxaa bixin doontaa $60 trainingka aad bixin doontaa si free aan kugu soo diri doonaa waxaan rajeynaya asxaabtiina heladiina inaad la wadaagtaan si ay iyagana uga faa'iidaan. Asalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh.